daawaneysaan waa barnaamijkeeni Askar iyo America oo runtii aanu idinka soo baahino waqooyiga America gaar ahaan labada magaalo ee mataanaha St Paul iyo Minneapolis. barnaamijka waxa idin xiriiraya anigoo ah Cabdimaalik Maxamed Askar. dad badan oo runtii saaxiibadayna ay gadaal ay ka riixayaan. si kastaba ha barnaamijkeena waxaanu ku soo qaadnaa barnaamijyo kala duwan haday noqon lahayd siyaasadda, caafimaadka, waxbarashada iyo runtii mar walba marxaladda taagan ee Soomaaliya haday noqon lahayd kuwa ku saabsan gobolka Minnesota ama waqooyiga gaar ahaan America ama runtii waxa ka dhaca Soomaaliya dhexdeedaba. هذا برنامج كنا ما توقع مرتين نوع رنتي بروفيسور أحمد سمتر أورنتي ضد بدنا يقرنيان مرر بدنا عن هالكم كسر عسولني رنتي جامعتها وقوي أمريكان إلا يسدد يطمن سنوات كديجين عسيا سطي يرجعلها. هذا بروفيسور أحمد سمتر رنتي وحاول يستاجي مدحوينه إنه كان قضوة كصوماليا سو مركه هالكاسي كصون دبوا كصون قضوة كصوماليا أنا كورة سنة الجوفتن مركي وكصون قضية مدحوينه ماذي سو هالكاسي مركاسي ترتن كقريب قليل لكن سه أي سنة سور توبين. sidoo kale waxa uu tagay markaasi wadanka Somaliland isagoo markaasi kula soo kulmay madaxweynaheeda wasiiradeeda iyo runtii marshi uu ku dhashay iyo runtii eheladiisi oo dhan markii uu ka soo noqdayna halkan ayaan ku wareysanay isla goobtan anagoo markaasi dhowr su'aaladood weydiinay hadaba intii uu ka soo noqday iyo intii aanu halkan ku wareysanay waxa uu dhaxaysay inuu safar badan uu ka citamay ee kamid ahayd Canada anagoo taa ka bilaabeen hadii Allah wada loo golaado iyo waliba warar badan oo aanu halkan ku qaada dhigi doono maanta barnaamijkeena waliba waxaanu jaanisinaynaa dadka iyagu runtii dadweynaha daawanaya haday noqon lahayd inay naga daawadaan live Facebook ama ay naga daawanayaan bal live magaalada Minneapolis. Professor Ahmed Samatarna indhoweeda aanan arkin runtii in aad idinku xishmad la su'aalahiina aad ku weydiisan kartaan taasi oo markaas aan u sameynay barnaamijkan Askar iyo America waliba gaar ahaan Somali Media in markaas dadka Soomaaliyeed aan ku soo casuuno markaas idinku gurihiina jooga aad markaas su'aalo ku weydiisaan. Waa Professor Ahmed Samatar ku soo barnaamijka aad baad u mahadsantahay walaal Cabdimaalik dadka idin dhageysanaya ee aan baade inaga dhageysanaya Mareykan amba adduunyada oo dhan iyo geeskii Afrika iyagana islaamnimo iyo Soomaalinimo ayaan u diraya in yarun baan ku sixi introduction-ka waan jeclaan lahaa inaan intan ka daayarahay oo 18 sanadood oo qura aan ka ahaa professor wadankan Mareykanka laakiin imika waa 30 sanadood way 30 years 18 sanadood laakiin hormuud baan ka ahaa jaamacadda diin baan jaamacadda ka أبو مسعود بروفيسور أحمد سمتر. أنا صدقت هاي إن ودقي هل كان حفلة قبطي طبعاً كي بيشة رمضان تيجي كدي بعيدي كبعدنا وحداتي مقالة كندا تورنتو هي ذاتي ما حد كلا كلت. وحن كلا كل ما يدي ضد سومالي لاند وده شيء أو يسور صدي أو جوجا مينيسوتا أو يسوقو يمد مقالة مينيابوليس دولات كيجا ميل وانا أكسن وحفلة وين كو قبطي. وأنا ورمي سؤال بدن بيويدين إلا 4 ساعات إيه برد أيام جفيني لكن ده مال حرقله وروح بدن أو وناكسن أو سؤاله قلنا أيهين سؤاله قود له أو أضبها أنت هيسي وناكسن إذا وقف فكرتين تانات هذل أيه هاي المركز أدبان وقام مبسوطي ترانتنا هذا الكي جداد يعني واحد تجي المركان وتجدت كي هوديل وين بيسوق قبصدين ومقالة تورنتو يدنا قركيجا كويالا وعصب قضى لو سمي إلا لحدا قف إن ودتكي ووينا رجي الدمر متعلمين تي صلادين تي سكوجي مادين الرئيس ماليلاند وأنا وضع قضيناي يعني سوينا سنو شاكي سنين دتنا وينه أيها يمد ساعات مركي هاي صدق بركي تصدق بركي لا طبنكي habeenimo waa 6 saacadood yaan wada joognay dad badan baa hadlay ana waan warramay su'aalo badan baa la isweydiiyay de waxaan arkay dad bisil oo kartile oo xaragale oo aan aad iyo aad uga mabsuuday yaan ku arkay Toronto oo reer Somaliland marka anigoo wadnahaygu aad u wanaagsan yahay ayaan ka soo noqday qalbigaygu balaaran yahay baan ka soo noqday kuna faanay dadka aan soo bartay oo dadkan ka yimid وقت أدنى نصتي إن ضد بدن بروفيسور أحمد وحده هي صاحبك بروفيسور أحمد سمتر وحنا فيليني إنه نيو ديل كان كقريب قالوا سو ولي بدي صدق أبلغ قاضي إن سومالي لاند وهر مرنايو مرها ديل لقاهم أرك شاشدي حكي سقفصان لا هذا جورت أنا جو سومالي لاند وحنو حد لكراون أنا جو دي قفت جمدا كيمد وهالكاود الشيء ودنتي ذا جود intii kartidaydu ay tahay iyo wanaaggeega meeshii aan ka faafin karo ka faafiya taasi waa igu waajib cidna fasax uga qaadan maayo laakiin haddii loo hadlayo degmada Somaliland iyo wadanka Somaliland loo hadlayo de waxa uu hadli karo uun de dawladda xalaalaysan ee dadku ay doorteen ee waqtigan joogtoon baa hadli karta amba dadka iyagu ay soo wakiishaan ay ilaa arinta nooga qayb galaan anigu dawladda kama mid ihi
imanay soo wakiilan marka de tagidaydu Brussels ma suurta gali karayso laakiin Somaliland de shirka kama bay soo qayb galin aniguna kulamaan taliyeen inay ka soo qayb gasho waxa weeye aniga sida ay la tahay waxa weeye Somaliland haddii shirkaas oo kale ka qayb galayso waa inay uga qayb gashaa iyada dadka madaxda waa Somaliland iyo dadka madaxda Soomaaliya oo ah ee Xasan Sheekh uu hor socdo in labadooda la soo casuumo dabadeetana labadoodu ay ka qayb galaan shirkaas sidii ay arinta ay wax ugu darsan lahaayeen ay u qaybsan lahaayeen waxa halka la soo bandhigayo ee la isku ogaan lahaa taasi waa mid laakiin de Somaliland dadkeegu inay Xasan soo daba joogsadaan taladaasi arinta mar hore ay tala ka gaareen inaanay wadada marayn oo wadada ka noqdeen haddii dib la iskugu soo noqonayo in dib loo sarrifo arintaas inay noqoto laakiin de inay yimaadaan iyagoo kamid ah gobolada kale taasi waxay la tahay inay tahay mid ay bari hore diideen aniguna kulama taliyo waqti laakiin waxa jira gabadh cadaana oo Europeana oo afsan ku hadlaysay oo dadka qaarkood ay lahaayeen waxay u hadlaysay Somaliland markii qadada Somaliland New Deal kana waxay kaga qayb qaadatay in dawladda Denmark loo soo mariyo dhaqaalaha meesha loo soo mariyo federaalka marka Soomaali ka cararo Denmark aad arintan waxa kula tahay maya Denmark Soomaali ka carar ma waa gartay dawladda Muqdisho joogtay Xasan Sheekh madaxda ka yahay tawana dhabowda horta waa gartay in la is ogol yahay waa inay noqoto calankii baan sitaa marka de amba jeclo amba yaan jeclaan aniga daba galaysa de taasi waa marankeygii uu dhamaaday in dib loo xalaaleeyo calankaas oo hawlihii aan hore uga doodnay inaku ee duopoligu ugu horeeyo ya in dib loo xalaaleeyo la bedelo de waa shaqo weyn oo taalo sugaysa raggeygii iyo dumarkeygii kartida lahaa ee geesinimada lahaa way sugaysaa taas halkaas ay taala laakiin ta aanay taasu jirin Somaliland iyada dadkeygii waxay goosteen hadda ma aha wax koox yar ay goysama dadkeygii waxay goosteen iskuna raaceen intoodii badnayd inay taariikhdoodii dib ugu noqdaan dantoodii ay dib ugu noqdaan ay adduunyada ka raadsadaan cid ay la saaxiibi karaan ee wax la qaban karto marka Denmark haday noqotay wadanka afkartay yiri anaga wixii adduunyada ka yimaada ee Soomaali loogu talagalay republic wixii loo dhan jiray wixii qaybtiina anaga idinka soo qaadayna inta aad idinku iyo inta xamar joogta aad soo golaanaysaan hadaad soo golaanaysaan de waxta anigu ma arkayo de ceebaho ku jira Denmarkna de waxay kamid tahay wadamada umada Soomaalida taageeraya deeqsinimadeeda wax ka bixinaya ay kamid tahay marka sidaas ay u dhacday bay aniga ilaa laakiin Axmed dad badan oo jidadkan ku arko waxay yiraahdeen Professor Axmed Saaxiib kaas matal dual bolanki labadan qodob uu sheegi jiray waa laga koobiyay hadda waxay noqotay de hawiye iyo isaaq oo Soomaaliya u hadlaan de marka taa maxaa anigu de ma arag de hawiye Soomaaliya oo u hadla isaaq iyo hawiye oo Soomaaliya u hadla ma arag ra'iisul wasaaruhu isaaqna ma dirna ma ya saadamaad garan hawiyena ma ra'iisul wasaaruhuna waxa weeye de qofka labaad ee madax ka haday dawlad Soomaaliyeed oo dhabihi jirto marka madaxweynaha haduu hawiye yahay ra'iisul wasaarihina uu yahay nin daarooda uu yahay de horta wax waqooyi la yiraahdo iyagu halkaas ay ku hadheen soo hadda maad garan halkaas ayay ku hadheen wana doodaydu tay ahayd for 52 years waa Maxamed Ibrahim Cigaal oo 3 sanadood ah waliba 3 sanadood aanay dhamaan waxa badi markii dambe ay ra'iisul wasaarnimadiisina baabisay markii madaxweynihii la dilay iyo Cali Khaliif oo 2 sanadoodba wixii su'aana gaarin intaasaynu ka aragnay wax dhab ah waxa kale de qof 6 bilood iyo 2 bilood iyo xawaada madar oo markii dawladda Maxamed Siyaad Barre ay dhamaatay maartay xabaasheedii dul jooga iyo waxaankaas ay noqday Umar Carto Cali Mahdi yar hoos jooga dhowr bilood iyo waxaankaas laakiin waxaas oo dhan markaad isku soo wada darto watan hore uu sheegay 10 sanadood ma gaariso 10 sanadood ma gaariso marka dawladda Soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha la isku xiro 104 sanadood ugu yaraan way soo tamaadka 10 sanadood ma gaariso marka duopoliga si kala loo macnayo laakiin dawladda xamar joogta garaamarkeegu waa sidii uu ahaa 1960 ilaa maanta soo tamaadka marka labada ka saarto Cali Khaliif iyo Maxamed Ibrahim Cigaal waxaan 5 sanadood ahayn ad ka saarto soo tamaadka de waxay kamid tahay dhulka ugu horeeya in wax laga bedelo ayay kamid tahay
haddii kale Somaliland iyo dadka ku dhashay maxay ka soo doonayay kaga soo noqonayaan waqti aad ma satay ereyga New Deal maalin kasta magac baa la keenaya wuxuu yahay kani waxa weeyaan in xisaab cusub new waa cusub in xisaab iskaashi cusub la keeno oo dee laba baad sidaan u sheegay hore laba baad ay yimaadaan Soomaali oo baad iyo adduunyadii kale oo baad labadaa la isku xidho iyagoo isfahmay ay wada galaan ballan cusub ballanka cusub uu yahay dee wadankii sida loo soo dhisay saliidii lagu soconayay iyo shidaalkii lagu soconayna safarka dheer lagu galayna dawladaha kale ay ka timaado dee waatan la leeyahay 1 bilyan iyo 700 milyan oo dollar 1.7 billion dollars ayaa la sheegaya marka haddii ay sidaa tahay waxa weey iga hal 2.7 billion dollars 2 bilyan iyo 700 milyan oo dollar lacag badan weey laakiin dee lacag sidaa u badan ma aha marka aad u eegto wadanku wuxuu u baahan yahay 4 bilaab ayuu baahan yahay gees markaad eegto baahida taal wadooyinka gaari doontaa deena gaari doonta in kala shaki weyn baa ku jira haddii de xisaabiyi hore ay masal yihiin example ay yihiin wixiina soo maray inay halkii uun marto ayaa probability ay u dhowdahay hawsha u dhowdahay waayo warkana soo gaaraya waxa weeye dawladda maanta Xasan Sheekh madaxda ka xamar fadhida dad way ku jiraan dee niyad Soomaalinimihii ay ku jirto kartile doonaya inay wadankoogii wax u qabtaan way jiraan laakiin hawada meesha taala iyo shaxda meesha taala warkana soo gaariyo waliba gudaha la nooga soo waramay gudaha hoose Muqdisho la nooga soo waramay waxa weeye waxa loo wada dan leeyahay qandaraas qof walba wuxuu soo ordayaa qandaraas sida loo helayo waliba kuwa dawladda madaxda ka ah way wada qandaraasaysan tahay soo adamaad gar marka bal ay noo dambayso Soomaali dhismaheega iyo wadan dhismaheega sida qandaraas looga helayo waa musuqmaasuqii hore ee waxoogaa yar laga soo bariyo adduunyada sida jeebka loogu ridanayo khidadeedii laga shaqeynaya hadiya habeen taas haday wadadaas haday noqoto sida ay ahaan jirtay waa ceeb cusub adduunyadana inta yare adinaka iyo adduunyada Soomaalida iyo adduunyada u dhaxaysay waxoogaa ka dhex qaadata macaashka yar ka dhex qaadata way ka qaadan inteeda laakiin ummadda Soomaalida baylahadeeda iyo baabeegu sidii un busiya laakiin mararka qaarkood dawladda Shariif waxay yiraahdeen sida gacanta loo taagay ee loogu yabaha Soomaaliya lacagta looma wada keeno marka taa laftigeeda kole half ama qayb baa ka gooda ka bacdina Nairobi way ku hakataa ka bacdina qayb baa ka sii gooda hay'adaha waaweyn waxbay sii qaataan waxa gaadhaaba wadanka 1% ama 2% taasoo waliba hadda dee musuqmaasuq la geliyay oo waa tan bangiga waa la kala bedelay maxay kula tahay wax loo kala bedelay bangiga bangiga horta intaynan bangiga u gelin su'aasha saad u bilaabay way hagaagsan tahay shaki kuma jiro waxa lagu ballan qaada iyadoo sideedii inaanay wadanka Soomaalida gelin shaki kuma jiro wax badan baa ku hadha dhulkii ballan qaaday wax badan baa ku hadha kuwa dhexda jooga agentska ku hadha oo soo faysta midiyahooga maalinta maqlaan ballan baa loo galayaa Soomaaliya halkan ay joogaan magaalada Nairobi maxaan ku lahaa Minneapolis iyo Minnesota ay dad ajnabi ah joogaan oo soo faysta marka la yiraahdo Soomaaliya baa wax loo ururinaya oo dhexda ka qaata oo qaarkoodna qaan soo aad garmis waxa jira dad Nairobi fadhiya oo shaqadooda dhamay the last 20-30 years ay tahay sida loo maamulo ee loo rogrogo arrimaha Soomaalida mushaahar wanaagsan ku qaato oo magaaladaas wax badan baa ku nool raqda Soomaalida oo ajnabi oo Nairobi degan tana way noogna marka waxa soo gaaray gacanta Soomaalida soo gala inay aad uga yar tahay wixii lagu ballan qaaday taariikhdeeda waynu haynaa tana way suurto gali kartaa inay sida ku dhamaato laakiin halka arintu amba ay ka jabto ee dee la jilcay Soomaalida marka dee kabta lala dul maro amba la iska yeeliyay haweenna soo martay taasi maanta ma dhacayso waxa weeye dadka madaxda ka ah oo Xasan Sheekh ugu horeeyo inay leeyihiin maskaxdii aqligii iyo intelligence-kii maskaxdii iyo geesinimadii ay arinta ka gaashaankeyga ka sii samaysan lahaayeen inay leeyihiin de waynu arki anu rajo weyn kama qabo inay taasi jirto
oo inay wadadii hore uu noqon doonto ayaan anigu filayaa laakiin waynu eegi doonaa taariikhda soo saari doonta in the coming 6 7 8 9 10 months ayuu warkaygu soo bixi waa gartay aad babasatay arrintan bangiga gudoomiye bangiga waatan waa la bedelay ma musuqmaasuqa ku yaraanaya kulata warku wuxuu leeyahay waxa loo bedelay wadamadii adduunyada ee waxogaaga yar dhacdhaca soo gaarsiinaya dadka Soomaalida waa gartay oo baankuna yahay meesha la dhigayo waa gartay ayaa yiri wax dambe soo direynaa ma jirto hadii baanka madaxdiisa aan la bedelin waa gartay Dr. Cabdisalaam markaa waxa lagu eedeynayaa in aanu hawsha maamulkeegii si wanaagsan u dejin waa gartay dadka qaarkiina waxay ku leeyihiin isaga maaha arintu ya waxa weeye waa loo dhiibtay waxa la bank Xasan Sheekh ku yiri tii adigu madax ka noqo Nairobi markuu joogay isagu joogay Xasanna uu joogay Xamarna xiriir badan baa ka dhaxay marka de noo hayo kaydka marka la keeno noo hay adigu dusha ka ilaali laakiin de maxaan ku leeyahay albaabka noo furnaado kulba sidaan doono aan u qaadan labadaas ay sag socda Cabdisalaam oo leeyahay isaga la fahantiisu gacantiisu ma qurux badna la leeyahay iyo noo hay oo quwad ka weyn oo tii madaxweynaha iyo wixii ag jooga la leeyahay de adigu noo hay laakiin sida loo sarifayo anaga ayaa iska wadan doona labadaas labadu tay doontaba ha noqoto amba labaduba ha jiraan de marka waxay keenaysaa dhibaato inaan hawsha aan soconayn marka bedelkii sida ayuu ku yimid war kale soo gaaray waxa la yiri jamciyad dadkii adduunyada waxay ku leeyihiin wax bixinay haddaan la bedelin wax damo bixinayna ma jirto marka de way ku kaliftay dad qarafeysanayo baahi qaba way ma oran karaan de haye haddaad diidaan de idinka idin jirta ma oran karaan soo damaadka qof qarafeysanaya ya ma la hadda karti uu ku yiraaho uu ku diido waxaan ku wixii loo soo wixii conditions ee lagu xiro madaxweynaha hadda wuxuu joogaa Mareykanka joogaa Soomaalida wuxuu yiri gobolka ku badneed Minnesota ma imaanayo cid walbaaba kula taliso laakiin Ohio waan tagaya maxay ku kala duwan bay kula talada magaa markii hore uu yimid labada meelood ba wutay waa absolutely dayma kan labadaba yimaado ayaa aniga ila egtay waa haddii ay dhab tahay waana sidan warka ku qaatay waa dhab dad badan oo mucaarida oo Soomaaliya nooc walba leh ayaa degan waa halkii Soomaali maanta ay ugu badnayd United States 50,000 people and more ayaa degan ba statistics inoo sheegay marka mucaarid badan haduu jiro de horta mucaaridku xaraan ma hadde oo in fact wadankii aan mucaarid lahayn de waa meel ay siyaasadii dhimatay weeyo marka aan qoys baale aan qof baale aan in yar ba xisbi yar baale meel aan mucaarid lahayn dimuqraadinimo ma jirto ma kamana soo baxayso afkaar kala duwan oo wadanku dadku ay kala arkaan oo kala doortaan kama soo baxayso marka inuu yimaado labada magaalo iyo state-ka Soomaali maanta Mareykan ay ugu badan tahay anu waxaan qabaa inay waajibna ku tahay isagana dan u tahay laakiin haddii aad ka baqdo oo mucaaridku su'aalaha ku weydiinayaan amba banaan baxba soo bixi aad ka baqdo taan waxaan qabaa inay fulanimo tahay madaxnimada dhabta ah iyo fulanimaduna isma qabtaan waa laba meelood oo kala duwan weey imow dooda fur qofku dadka waxa ku waajibay imanaya inay edeb la yimaadaan su'aalaha ay edeb ku weydiiyaan ay aanay jirin fadeexadi aanay jirin violence ya qalalaasana aanay jirin laakiin su'aalaha kuwa ugu adag lagu weydiiyo soo damada anu Hargeysa waan igitay jaamacadii baan ka hadlay 700 oo qof joogan Hargeysa su'aalaha la weydiiyay fallaadhayn qaarkood soo damad gar haday ka dhab tahay inaad tahay qof ishuba ilaahay umba jawaab walba wanaageega yaqaan laakiin aad ku kalsoon tahay aqligaaga iyo qalbigaaga geesinimadeedana aad leedahay meeshuna ay tahay meel ay ammaan jiro tag su'aalaha ka jawaab adigay ku tahay hadaad madax tahay inay training ku noqoso dadkaaga loola doodo soo damad gar adigay ku tahay dooda ugu adagina waxay taala adiga iyo mucaaradkeedin dhex taala marka anigu aad iyo aad baan u ahay inay u gartay inay tahay nusqaan weyn inay fulanimo siyaasadeed tahay iyo madaxtinimo ay tahay ayaa muuqata de waa nasiib darro weyn marka inuu iman waayo Minnesota iyo Twin Cities
وقت أدب ما صتي داود هالكان نقدر ونسان وعسكري أمريكا برنامج كي أنو تكسرتين شني سومالي ميديا يو واللي بدت كان نقدر ونيا لندن يدون كوردنا نقدر حريري شنين سومالي سات أمريكا سويت شو قصدي وكالة دتك فيسبوك أنا رنتي نقدر وضع خط كتلفون كده فضلا ضد أنا صوغشو و 612-746-0553 ما توهم مرتين وقع بروفيسور أحمد سمتر ورتي جامعة وقوي أمريكا إلا يوم مدة صدق سنة ضد وحكي دقيقة استديو توان كسنة وجود بيركا هربوت كل يدا لو مقعبه مكلستر كوليج إيكوبركا من صوت عاصمة مقالة سان بول وقع خد كتلفون كان فرنا هدي الله ودلو قلاده هدي جو رنتي ودي كرا بروفيسور كسياسة دي دقالها سوماليا رنتي أما سومالي لان برنتي ودي كرا يولبا أنتو مركزي وسقو وخبرة ولا هاي سيدا خلي أنت سؤالها أنا سوق أنا قلبت كنا وحن شعل لاين مركزي أنا سؤاله سي ودي دون وقع خد كتلفون كان فرنا هلا والسلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام عبد المالك ولا الله السلامي أديك أيو بروفيسور أحمد سمتر وادي سلام يا لبدين نبى سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وما تنت ولا. بركو الرئيس وحن سيجارو رئيسنا يا من سؤال ويدينا يا بروفيسور أحمد. بروفيسور أحمد واحد هاي بروفيسور أي سومالي لكوهم وين تاي وعن كا community قد حديثة you might be an international arena. marka waxyaabo badan baa jira waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo su'aasha mar hadda tahay aqoonyahankii Soomaaliyeed waxay aqoontu ku saaraysaa special responsibility oo oranaysa professorka waxa si gooni ah uu mas'uul aga yahay sidii loo qeexi lahaa baahida ka jirta wadankeeni iyo sidii looga gudbi lahaa always inaan helno the wrong leadership marka ma la oran karaa tagista Hargeysa iyo Muqdisho waxa ka habooneed inaad halkan waqti ku bixisid sidaad u qeexi lahayd baahida jirta iyo sidii loogu heli lahaa foundation Soomaali ay u hesho hoggaan karti leh sidaad hore u sheegtay marka waxyaabahan ka hadlayna waa garan kartaa hadda madaxweynihii Soomaaliya wadanku nala joogaa wuuna awoodi waayay shacabku hogaaminayay inuu yimaado oo warkii information sax siiyo marka waxaan ku oran lahaa inta aad waqti ku lumin lahayd siyaasadda hadda ma la oran karaa more schoolad iyo articulation of baahida ka jirta wadankii inaad waqtigaaga gelisinta noloshaada kaaga dhiman ma la oran karaa arrinkaas inay ku habboonay aad baad walaal u mahadsantahay waana su'aal habboon oo waqtiga ku habboon aniga waxa ila tahay jawaabtii oo soo gaabinayo de in laga qoro oo laga hadlo Soomaali waxay u baahan tahay institutions iyo xafiisyo dawladeed oo shaqeeya dawladnimadu waxay tahay madaxtinimadu waxay tahay waxa lagu garto de ugu yaraan 20 sanadood amba dhowr iyo 20 sanadood aan wax ka qoray adduunyadana meel aan ka hadal 59 wadan baan tagay meel walba waan ka hadlay arrimahaas wadanka gudihiisa waan tagnay xisbi dhan baan sameynay oo arrimaha soo bandhigo heel qaran la yiraahdo nasiib darada waxay noqotay waxna la garta ayaan weyn maanta xisbiga heel qaran oo inta soo sanadood jiray ugu yaraan 3-4 sanadood soo jiray dadka ku jira kun qof haday ugu bataan ee bixiya ya membership dues ka bixiya kun qof ma cidna la garata ayaan weyn xamar waan tagnay way jireen dad soo baxay qaarada dhalinyarada jaamacadda ku jira way jireen laakiin dad maxaan ku raahayay iyagoo buuxa amba han noqdaan intellectuals ka han noqdaan amba baayac mushtariga ballaaran han noqdaan amba han noqdaan dadka ku jira siyaasadda ku jira han noqdaan amba han noqdaan maxaan ku raahayay dadka caadiga oo intay noo yimaadaan yiraahdo maxaan idin la qabanaa tiradooda way yareen Hargeysa markaan tagay anigoo waliba Hargeysa la haysto inaan ka mid ahay dadka ugu waaweyn ee Somaliland albaabada ka xidhay adduunyada Hargeysa markaan tagay ummadii Soomaaliyeed ee Somaliland deganeed iyadoo sidii badda u soo baxday cid lacag la siiyay iyo cid dawladda ay ku tiri soo baxayo ma jirin soo garmis meelaha qaar koon waxaan la hadlayay dad gaariya 100,000 oo qof soo dhammaad ayaa waxay u haraadan yihiin dadkaas inay adduunyadana fahmaan iyagana la fahmo si wanaagsan loo sheekaysto soo dhammaad gar maanta waa meesha qura
gees aad mari karto ee dadka la doodi karto ee la sheekaysan karto waqtigeegu markuu yimaadana codka ay ka dhiiban karaan marka anigu aad baan mabsuud uga ahay waqtiga aan ku tagay Somaliland inaanu ahayn waqti khasaara inuu yahay waqti faa'iido weyn anigu personal aan ka helay oo wax badan oo cusub soo bartay dadka jamhuuriyadda Somaliland ku noolna aan soo arkay aqligooda iyo maskaxdooda waxay yihiin wax badan ay ka dhiman yihiin wax badanna qabsaday marka cilmi cusub ayaa soo kordhay aad iyo aad baan mabsuud uga ahay inaan tagay waanan ku noqonayaa dhawaan hadii alla yidhaa inaan dadkii balamo badan oo soo galay jaamacadaha iyo dadkii aan dib ugu noqdo arrinta Soomaalida ballaaranse anigu maxaan ku raaa arinta inaan tala ka bixiyo kamaan harin oo dee inaan yiraahdo war wadada hal maro oo taa hal maro oo taa hal maro kamaan harin soo aad garmis xasan anigu waan la taliyay xamar markaan ka soo baxay waanu saragno waan la taliyay arrimaha qaar kood baan kala taliyay oo waliba qadiyada Somaliland ay ugu horeyso aniga iyo dad kale oo wada socon iyo anigoo kaliday kala hadlo halkaana way ka baxday soo dhigtana way ka gashay dhigtana way ka baxday sheekadii hore ee ummadda Soomaalida baabis iyo siyaasadda yar ee gaaban ee amba qabiil amba xaafad amba qof dantiisa ah ayay wixii ilaahay imaka dawladdiisa dhaafilaad soo hadda Soomaad gar marka de ummadii Soomaaliyeed amba halka ha joogto wadanka gudihiisa amba halkan ha joogto Minnesota ha joogto soo hadda maad gar halkeen loogu tagaa ee dan Soomaaliyeed lagu haya ayay noqonaysaa anu ma arkayo taas halkeen loogu tagaa ee dan Soomaaliyeed lagu haya maanta aan soo gabagabeynay waxaan oran lahaa walba Somaliland haba dambayso arinteedu oo de waa heavy duty waa culus tahay taas war hadii dan Soomaaliyeed iyo xaq Soomaaliyeed la raadinayo dadka Soomaaliyeed ee ku nool koonfur degan Soomaaliya ya ma aha oo labadan community ma duopoliga labadan ma maxaa loo leeyahay in la helo ra'iisul wasaare dadka 0.5 ka ah ya in la magacaabo doorasho ma aha in la magacaabo qof 0.5 inuu ra'iisul wasaare ka noqdo wadanka maxaa loo leeyahay way jiraan dad fara badan oo aad karti leh waa dadka inoogu ilbaxsan way qaar kood maxaa loo leeyahay maxaa loo leeyahay inuu qof digil iyo midfleehi wadanka ra'iisul wasaare looga magacaabo maxaa loo leeyahay maxaa loo leeyahay qof dadka dirka ah ee koonfur degan inuu ra'iisul wasaare wadanka ka noqdo maxaa loo leeyahay hadii madaxweynihii la waayay amba madaxweyne badda ay ka noqdaan soo hadamaadkan waa waxyaabaha foosha xun la ee ku aasan wadanka in badan ka doodaynay in la bedelo soo hadamaadkan marka anigu kama harin dantii weyneed ummadda Soomaalida sida wacdi iyo talo loo tusayo waanan qoraa waanan ka hadlaa laakiin aniga qalbigayga iyo maskaxdayda waxa imika u soo jeesatay dadkii aan ka imid ee Somaliland wixii aan la qaban karo in aan la qabto waxay haystaan in la badbaadiyo waqti Ahmed ma aha runtii say ku gubayso dad badan u gubaysa xalad hore waxa jiray shir looga hadlayay Khaatumo inay Soomaaliya ay ka baxdo Puntland waa hore u sheegtay tiri dawladda waanu ka baxaynaa Khaatumana xalay bay ka baxday dawladdan cunus oo u wato de wadankii in laga baxay bay ku dhowdahayba taasana laga yaabo inuu Minnesota u iman waayo oo ka baqayo oo hay'ada laga yaabo reer gada ay ku badan yihiin laakiin tiinaan u gelin khadka telefoonka aan qaato allo salaamu calaykum عليكم السلام. كسر ولا بروفيسور أحمد سماتر أو مانت مرتين أوجا استوديو. أوكي ها السلام عليكم أنا جو حالي لها أحمد عبد القادر أحمد عرو. بروفيسور كوحان هل سؤال بان ويدين سؤال شان ويدين لها مرك هروك جوابي سؤال لبعض ويدين وحوي بروفيسور ما دام أنك عرو تتعرف كفرنا هاي ما لقى يا بارد نقصون نقطة. هذا ما صنت. وسؤال آد هو نكسن. ده أنا جو ضدك ولا لها يا سومالية ده كونفور دجنا. كمان أنتجين كنا تجي مايو مال الكلام ولا لا هوي حاجين تجي وحلا لا يسكو هيا وحوي سده لا يسكو حكومة governance سده لا يسكو حكومة لكن ما أنت أنا قدرت سومالية مال الجوجان أو بكونفور الجوجان أو بوقوي هالجوجانة وأنا قدام قانين أم بان كوردية مجرته ومدة كونفور هذا سوماليتنا يا ودت كي يجوي أم بكيس ما يهد الجنادان أم بيسكو شو هاد الجنادان أم بولا بردية برد وين هاد الجنادان أم ببوصاصة قرر إيو هاد الجنادان قروة سو هذا ما تقال وي ما أرديون لاسعانو دي عرقابية هرقيسية بربرية برعية بورمون وما أرديو إن دتكاسون محنكو راي قوني وراعو سو هذا ما تقال سومالي ودتكا إسلام كا الصومالية إيجان كدش سو هذا قرميس كل كمان تجين وحسا كتجي سياسة دي فوش حميدة نعسنايدة الصوماليات laba xaafadood ay ku qaateen monopoly
ee karti darrada ya ay weheshadeen ya ee maanta halkaana dhigtay taasaan ka tegi soo hadda maad garan marka dee walaalahayga Soomaaliyeed ee koonfureed hadday hayaan taa wax ka duwan xagga siyaasadda iyo isxukunka dee hal la maqlo codkooga iyo hal tiradooda hal arko soo hadda maad garan laakiin taasan anigu ka orday siyaasadda foosha xun leh ee corruption ka ee incompetent ka ee tribalistic ayaan ka orday soo hadda garmis kolka bal dadkii aan ka imideen ka dhashay xabaalihii hooyooyinka iyo aabbahay iyo adeerada iyo awowiyada iyo abtiyaasha iyo Soomaalidii waqooyiga ay ku nooleed inaan iyaga waxaan la qaban karo inta ii hadhay aan ku dadaalo waana waxaan siin karo aan siiyo garabka aan siiyan ka ilaaliyo dareenyada iyo hadii la qashqashayo aan ka ilaaliyo iyagana aan la toosiyo hawsha ay wadaan absolutely dad tusaale u saqata Axmed waa bad ka hadashay madaxweynaha 30 qofood buu watay wafti ah ee labadii xaafadood ma ahayn hal xaafad kaliya buu 30 kuba ahaa xamar iyo gudoomiye gobolka Shabeellada Dhexe iyo marka iyo xamar xaafadaheedii un baa meesha wada tagay taasaana de khaatumada laftigooda ay shalay uga baxeen dawladdiisana iyo waxa wato xildhibaanada hadda laftigoodana way ku dhawaaqi doonaan ka baxaan marka lagama tagin shacabka saa sheegaysid shacabku day wasla dhasheen oo walaalo way mar walba way isku gursadaan way isku wada qabaan laakiin siyaasadan fooshuxun waxa weeyeen lagu dagaalamay inaad ka tagto wax ka dhaxeeya absolutely fair babaan la soo garaacay fair xamar markii ugu dambeysay last year aniga iyo Ali Khalif Dr. Ali Khalif General Jaamac محمد قالي جامع يري يا معلن كيجي إسماعيل بوبا أفرتيدا أيا أوتقني حسن الشيخ وحان لبطو الضباطة هين أيو مركا مدحوينية الدولة لما قعابية رئيس الوزراء مجرد وحان كلا هذا لني أنه وراغ ذي دينا قرني وان هيا كوبي جيجي وحان كلا هذا لني قضية دتك وقويك سومالي لان دتك كيمد ودن كاد جوجا دتكاسي دنتو ذا أيان كهذا لني أو توين الصومالي وين كحدا أيان كلا هذا علي خليف دكتور علي خليف هذا الذي يريون ولقي إلو بين واحد كمذا مركان ضد دابلوني وحو يري حفيز كان مدحوينه يا قفر وقوي وكشقيه ما أركينه حفيز كان وين ذو حكم بدشاه أو إنه قطم على كم وقطه وضنك إن يوم مدحتو يده إلا وذليه وذكر وقوي سومالي لاند أي قيب وين كله يهين هل كان وين كبل عبنتا أودي دينا قعنتا ده إمك كجرتا إلا ما أنت ما هينا ده واحد سكب بدلي ما هينه واحد فيز كي مدحوينه بريزيدنس واحد سكب بدلي ده أنت كلاك سيب بلادنا هذا الكيك بقى وادين سو هذا ما تقول وارين لك هالجوري يا إن ولا ودليه ودنك قضية تاجنين مدفر بدن تاسهيد ده كي سومالي لأن واحد كليهين وانك قوسنا تاس وانك قوسنا ما مغليان ما لما أركي إليت كي ساوث كراي ما أركيان ما مغليان مركز سداس أيانو ورصون نقولني كبني ماذا يدي وقت كل واحد فيلا إن ودودو دي ونهض الله وضحيه وقت أبغى ما أستطيع خاتك التلفون كان قادنا دي الله هذا لو قراده خاتك التلفون أنت ونوع ما نيو أمنا لا سوايو ساد وقت هاي كونفورت لفتي جدي وفتي واحد كم ده شو بلانة تجي هشيز وحكوا جارين إثيوبيا إن وصوا مجاعة صدق قدومي لكن قدوميه جدو أيها السعودي مركا واحد مودا إن هشيس كلفتيس ودي إثيوبيا كليو مركا كوبر بوري كربالكا وهذه ياد بس وتجلي كرتا أنا قوين يرى أقدر سؤال شيء هورين صدف أنا وركا ما هيو ده حالي إن خاتمه دتك مدح دي دتك هالكنت جناي كله واقعين إن لقب بحيو إن الصومالي وين تي لقب بحيو سجوني الله بحي ما ولا واحد هذا حلبان نبض وكبحنا وكبح أنا مركا واحد كنت ترين وبنت لو واحد دولة دون كبحنا لكن حلبان ذي وهستان أنا واحد كنت ترين حلبان حتى وانا كبحنا أنا واحد كنت ترين له on رياقات ما كورن له يا مدح دود عين وذا لسنو سومالي لاند صون نقطة أنا ضد وذا قلنا وحي دب له حلالين يا أن دب حلالين إذنكم مدح كان نقطة صح ما تقدر يا ودي كقريب قال ترتنك لقليو وي صوب بسلانة السومالي لاند سياسة ديتو إن لو ذليه هي رجابو عرايو إلا لاسعانود إلا لو يعد يسيلع إلا وذليه هي وي صوب بسلانة ترتن كي يجيب على قليه صون لو ضو ترتن كقريب قال أنو قرب قيس قبسنو أينو دسنو يا leadership سومالي لاند جيّة مال أنا إيمك الجوجينو إنتن كوين ومدة كلا سوماليانا هلا عنو قتل صوت يكسر
وقت أدب مصادر بروفيسور واحد سوق رجع قبل برنامج كان سوق رنا وكشعنا له هنا اللايف كان يضوطن عنو سي وضنا تاز وتي أدخاتهم كلها تلسي لنا عكون فرت لفت جودها ما حد كلها تلنا هيد أنت سوي الدعاء ونقطة هاي ده واحد بدن بانتليني لكن ده عيد كل دقيقة سنة ما شفته وين الدعوة جفينين أيام بعضو قادنا أساسا دي تمعد وشيء دقح دحيد أدبكوا قراء حضر دقح دحيد سو ما تقول وحوي يسبدل باصوص على ليه ما أنت عز الشيخ بقى واحد بدل يا ليه هداي تاسو نبتهاي تو سنتي هرونها نو ولاقن او امضها هو ولاقن wax cusub oo dramatic different oo sida u baxaya oo taariikhda ka duwan konton ka sanadood ka duwan hal la helo soo aad garmis ra'iisul wasaare aan ahayn labada xaafadood hal la helo oo kartile laakiin ya kartile daacada ay maxaan ku rahay taariikhdiisuna ay tahay mid xalaala hal la helo dawlad cusub oo yar oo kartile oo xaafadaan loo qaybinayn hal la helo أنا مو قدي ما قرنا يدي وما موقت حسن إنه ليه هي جسني يعقلي أرين عين كاس أنت اللي يستاجوا ومضى الصومال اللي يلعب واتاس صوت ما تقرأ هدي اللي قولها راعي وين الله ضد صدق سنة ضد بدنا تأثير ريع هدي اللي قولها وين قعمتك قاعدة وعيد كلا قبض تاريخ الصدق أوقع سو قرميس عبد الرزاق حاج حسين وأكيد ذلك عين كاس كانين 1964 ذلك عين كاس كان ما أنت تاريخنا ملوين أيوك ججرة سو قرميس ده حسن ما قرنا يا سيد التاريخ ده لو كسبده mise maanta dhacdhacayaalay iyo waxa yaraadayay ilaa cayariya sawirka la qaadayo magacaaga la sheegayo ayaa dawladnimada iyo madaxtinimadu ay ku koobanta mise taariikh ba taal taaway maanta horta Allah isaga marka saabadkii waxaan kula talinayaa dadkii caadiga ahaa idin kama naan tagin ummad Soomaaliyeed banu nahay oo isku xidhan laakiin waxa laga kala tagay waxa weeye sida la isku xukumayo iyo dawladnimadu waxay tahay soo maad garab tii haddii aad xisaab la timaadaan idinkoo is ogol oo noo timaadaan haddii dadkii reer waqooyiga loo yimaado la yiraaho aynu bal dib u sheekaysano wax dhab ah oo xalaal ah oo xaq ah sida loogu heshiinayo anu waxaan qabaa dad badan oo reer waqooyi ayaa dhageysan kara taas oo iliidka reer waqooyiga tan waxay ku xidhan tahay xisaabtu details waxay yihiin laakiin Somaliland waa safar dhaqaaqay oo socday soo damaad garan cid ay u joogsanaysaana ما جرتو هدي أنا لكينين ولا صهر دقين تواحد يوجوك سدان. absolutely. وقت البروفيسور أحمد سماتر وحنفلة ورئيس جيسالك سكوا قيب كنا فينا قيبتين الله بعد هدي الله.